بسم الله السلام عليكم marka lagu soo dhawaada channelkeena tacliin cusub koorsadii barashada HTML maanta waxaan qaadanaynaa waxaan ku soo jirnay HTML images so image waan soo qaadanay image map waan soo qaadanay hadda waxaan qaadanaynaa background images so waxaan kor u laabto page-kana aan noo soo dhaweeyo noo sii weynaysiiyo okay عشان marka wuxuu ku saabsan yahay HTML background images sida maaragtay sagxadda page-ka ama qayb ka mid ah page-ka sawir loo geliyo looga dhigo so background image can be specified for almost any HTML element sawirka sagxadda background-ga waxaa lagu qeexi karaa ku dhawaad HTML element oo dhan HTML elementna waxaan soo qaadanay casharadan hore ku soo qaadanay so background image on HTML element sawirka maaragtay sagxadda ama dhulka hoose ama xagga dambe HTML element la dul saaro si loogu daro background image HTML element si loogu daro waxaa la isticmaalaa laba shay oo kala ah waxaad adeegsanaysaa ama la isticmaalaa HTML style attribute kala yiraahdo HTML style iyo property-ga CSS background image property-ga so marka HTML style attribute iyo CSS background image property la isticmaalo labadaas shay so wax kasta oo sheekada ama hadalka aad ku fahmi weysana tusaalaha ku waadixin doono okay tusaale marka waa kana ku dar background image lagu HTML element so try it yourself aan ku dhufano meeshaan aan booqano inta kaas aan okay sii wareeganayo kaas horta meeshaan aan aragna fiiri style kan waa div element waa hadda so waa qayb container waa in gooni u go'an so style-kii HTML style waa kana background image-kii oo CSS background property-geedana waa kana background image-kii labada waa la isticmaalay kadib waxaa la raacinaa URL linkiga oo website-ka lagu xiriir sawirka lagu xiriirina then intaas leewa marka so marka saas loo fiiriyo way fududahay so tusaalahana la siiya aan bal fiirino HTML code-kan meesha ku diyaarsan waan aragnaa marka waxaa waaye h2 background image waaye header-kii paragraph marka waa kana wuxuu ka hadla background image for a div element waa marka kan hadda div element waa wax gooni u xiran oo container ku jira camal waa so marka qoraalkan gadaashiisa sawir ayaa ku jiro sawirka background waxaa background image looga dhigay qoraalkan ama div element-gan sawir si marka sida loo suubiyo marka maxaa la adeegsaday waa kana habkana la adeegsaday marka waxaa sameyn karaysaa si fudud copy inta soo tiraahdid aad editor-kaaga aad ku dejin karaysaa kadibna waxaa sameyn kartaa kaliya waxa ka bedelaysaa meeshaan oo sawirkaada kan img calaamadda hoose gabadha uu ku qorayaa kan adi marka sawirkaaga linkigiisa baa inta ku qoraysaa magaca sawirkaaga bis iyo extension-ka uu gadaal ka leeyahay kadib marka maxsuulka ama natiijada sidaan ay noqonaysaa okay tusaalaha xiga ee bixiyana waxa waa isagana p element waa kan intaan kan u gudbin qoraalkan hadda aan akhriyo waxbaa ku jira isaga naftirkiisa waxaa lagu yiri waxaad ku qeexi kartaa background image-ka HTML element kasta oo visible ah oo la arki karo tusaalahan background image-ka waxaa lagu qeexay div element so sida asalka ah background image-ka wuu isu soo celcelinaa will repeat itself in the direction or directions yani jihada ama jihooyinku isku soo celcelinaa sawirkii soo noqonaya dhowr xabo noqonaa ilaa uu ka buuxiyo page-kii ama meeshii where it is specified meeshii lagu qeexay so marka wuxuu ku yiri marka isku day inaad cabirka browser window-ga shaashada ku furan aad ka daalacanaysid inaad size-keeda aad ku samaysid resizing yani hadda tusaale ahaan
meesha haddaan furo ana hadda kan 125 uu joogaa so waa yareena waa ku daray waa fiirinay so marka hadba inta tiro oo sawiro ku soo muuqanayo ama inta jeer oo repetition ku sameynayo ayaa ka arkaysa celcelinta soo celcelinta inta jeer oo soo celinayo so how background image behaves marka sidoo u dhaqmaa sawirada meeshaas ka arkaysa tusaalaha xigo asigana oo p element lagu sameynayo waa kan ka hooseeya waa asigana waa kana paragraphki ayaa sawir laga gadaal mariyay so iyadan in la sameeyo way fududahay open tagga oo paragraphka ayaa waxa ku qoraysaa style html attribute ka aha background image oo css property ga aha url sawirkaad gelina qoraalkaas qoraysaa url sawirkii oo adi markaas aad rabtay inaad gadaal marsiisid addresski linkigiisaad gelinaysaa magaciisaad gelinaysaa dhibic waxa ka daba marsiinaysaa extensionka oo sawirkaaga leeyahay kadibna natiijada sidaas ay noqonaysaa so qoraalkan kaleentana wuxuu la mid yahay qoraalkii hore oo kaleento so waxaa ku qeexi karaysaa background image html element kasta oo visible ah tusaalahan background image-ka waxaa lagu qeexay p element sida default-ga uu ku yimaado asalka ah waa background image asiga soo celcelinayo marka waa la bedeli karaa no repeat waa la dhihi karaa laakiin qaybta kale casharada nagu imaanaysa taas so marka wuxuu ku leeyahay try resizing the browser window to see how the background image behaves marka resize inaad ku sameynaysaa si aad u aragto sida uu background image-ka uu isu bedelo ama u dhaqmo sidoo noqonaya baad arkaysaa okay see socono you can also specify the background image in the style element in the head section sidoo kaleento waxaad ku qeexi kartaa background image-ka style element adigoo adeeg style element oo lagu dhex sameynayo head sectionka marka maxaa laga wadaa bal intaan aragno marka waa kana example aan ku siinaa ku qeex background image style element yaa lagu yiri so aan aragna iyadana okay head sectionka waa kana marka fiiri doc type-ka html5 ka inuu yahay noo cadeynay html documentiga oo cadeynay markastaba ma aragtay wax walbaba midkaas open taggaas iyo kan ugu hooseeyo waa kaasa kan ugu hooseeyo qasabka ahayd in lagu qoro marka ka laga yimaado marka waxaa ku xigay head section marka qaybta waa kan head sectionka open tags waa kan intuu ka bilaama wuxuuna ku egyahay inta so inta u dhaxaysa marka dhaxdeesa kaas kore open tagga iyo close tag head sectionka ayaa waxaa ku qoraysaa style element marka style ki aad furtay style ki aad xirtay dhaxdi marka ila start tag content end tag way inta marka la isku waxa la isku yiraahdaa element marka style element so style elementingan ayaad marka sidaan u qoraysaa marka div background image-ki url sawirka magaciisa dhag maxsuulka waa kana natiijada just waa unkii hore oo kaleento laakiin kan wuxuu uga duwan yahay markaan waa in style element oo head section lagu sameeyay so qoraalka iyo faahfaahinta waxaana waa adaat intaan arkaynay oo kaleento waa iyadana wax cusub ma ahan okay hore aan sii socono background image on a page marka sida page loogu sameeyo sawirka xagga dambe sagxadda ama derbiga dambe lagu dhajinayo so if you want the entire page to have a background image haddii aad rabtid inaad pageka dhan aad u sameyso background image sawir yani xagga gadaale ka saaran waa inaad ku qeexdaa background image-ka on the body element marka body element-gaad ku qeexaysaa markaas tusaale markaan body element adeegsanaysaa marka ku daraa lagu yiri background image for entire page marka page-ko dhan markaa ku daraysid dariiqadan aad maraysaa waa kana marka fiir style meesha kii hore oo inta div oo ka ahaa kan marka div ma ahan waa body so always focus the difference marka meesha farqiga ka jiro ayaa aqoonta taala ama ogaashiyaha u yaalaa tusaalihii ka horeeyay meeshan hadda badiga oo inta uu yahay kan kale wuxuu ahaa asigana aan fiiriyo div oo ahaa kan ma ahayn
naga xiro kan xataa iska xiro okay kan okay meeshaas ayaa diif ahayd inaan midka kuuxa aan xiro u galaa dhici karto okay haddaan xiro kor u laabto xataa inta xataa waan ka arki karnaa waa kana fiir diif meeshaas so difference waa intaas waay kii hore qayb yar oo container ah in yar oo gooni u go'an ayuu maaragtay bedelayay laakiin kan entire page waa marka page oo dhan waa marka entire page marka entire page marka la bedelayo body elementiga lagu sameynaa so intaas waa farqiga muhiimada sii socono okay background repeat marka soo celinta marka if the background image is smaller than the element haddii sawirka uu xajmi ahaan uu ka yar yahay elementiga meesha lagu sameynayo the image will repeat itself marka sawirka asiga ayaa soo celinayo oo dhowr xabuu noqonaa horizontally and vertically jiif iyo joogba marka jiif iyo joog intaba waa uu soo celcelinaa yani hadda joogi waa kana fiiri jiifna waa kaasaa pagekii buuxinaa nuxurka waa intaas marka jiif iyo joogba sawirkii waa soo celcelinaa ilaa iyo uu ka buuxiyo pageka oo dhan marka si horizontally iyo vertically ah si jiif iyo joog ah until it reaches the end of the element marka meesha u dambeysa loo ka gaarayo elementiga dhamaadkiisa tusaale marka waa kana okay waa kana sidaan isugu soo celcelinaa okay example sawir kasta aad geli sidaasaa noqonaya marka hab laakiin celceliska loogu joojino way jirtaa waan isla arkeynaa ayadana bal aan meeshan cashirka ku sii laabano okay wuxuu ku leeyahay meeshan to avoid the background image from repeating itself si looga fogaado lisaga ilaaliyo sawirka backgroundga laga dhigayo inuu soo noqnoqdo set the background repeat property-ga marka property-ga ah background repeat waxaad ka dhigaysaa to no repeat ka dhigaysaa so value-giisa no repeat ka dhigaysaa property-gaas okay example aan lagu siinaa marka tusaale waa kana fiir style elementigii kuu furnaa bodygii kasii ahaa oo entire page-ka dhan aad ku bedelaysay background image-kii aad property-ga isticmaashay URL sawirka aad soo gelisay background repeat property-gana haddana isticmaalaysaa waxaa leedahay markaa no repeat adigoo semicolon-kana isticmaalayo so marka sida markaa tiraahdo no repeat ma soo celinayo marka okay let's try and see it internetka aad moodaa in maaragtay xeer oo culus yahay ama computerka iga cuslaaday aad dhici karto shaqadan badan page badan ay furan darteeda okay waa kana marka hal sawir la noqdo marka sino you can avoid the image from being repeated by setting the background repeat property to no repeat si aad marka uga ka fogaan karaysaa inuu isaga soo celceliyo maxaa sameynaa kaliya background repeat property-ga ka dhigaysaa to no repeat ka dhigaysaa just waa action-kan hawsha tilaabadaas la qaaday waay maxsuulka marka hal hab buu noqonaa good ka sii socono marka okay background cover marka in cover laga wada dhigo background cover-ka lagu daboolo if you want the background image to cover the entire elementigo dhan markaa rabtid inaad ku dabooshid oo background image-ka u daboolo you can set the background size isticmaali kartaa property-ga to cover ka dhigi kartaa marka okay sidoo kale si aad u hubisid elementiga oo dhan in uu markasta uu covered yahay mid daboolan background attachment property-ga waxaad ka dhigaysaa to fixed ka dhigaysaa value-gaas siinaysaa fixed-ka sida markaa samaysid background image-ka dhan uu wada dabooli doonaa dhammaan entire elementiga with no stretching asigoo aan kala fidinaynin sawirkii aan jiidaynin the image will keep its original proportions yani siduu ahaa asalkiisu ku taagnaanaa sawir isma bedelayo waxaa loola jeeda waan arki doonaa
يعني في صبرك وكان هدا ومتك جيدا وكاس اوكي كان هدا كان جيدا واي لكن كي هدا انا هدا اركين انت كسو هادليني fixed و اوكي the image will keep its original proportions كي سيديسو اهانا كاس انا ارقنا مركا اوكي وحال استعمال وكنا بعدي style elementigi بعدي او page كنا نرى انه دوالو background image URL اوكي صبركي مقعي صبركا iyo extension كيساد قلنيسا background repeat waxaa gelinaysaa no repeat inuusan sawirka isbadinin background attachment fixed ka dhigaysaa inuu dhinacyada dhan buuxiyo size cover oo wada daboolaa si hubanti ah so tusaalaha aan fiirino oo dhammaystiran waa kana marka waa hal sawir waana originalki waaye asigoo aan la jiidin oon la ballaarin yani sawirka ma la kala fidinin okay toolska la isticmaalno kuwana waa ujeednaa intaan waa marka hadda aan sheegay lewa ku celis macna dheerada ma sameeyay okay hoos aan degno background stretch marka la fidiyo la kala jiido if you want the background image hadii aad rabto sawirka background-iga ah in uu kala baxsanaado la fidiyo asiga la kala jiido si uu u buuxiyo u fit gareeyo entire elementigo dhan si uu u qabsado marka rabtid waxaad gelin kartaa background size waxaa ka dhigi kartaa proper value waxaa ka dhigaysaa 100% marka 100% ka dhigtid maxsuulku wuxuu noqonaa sawirkan hadda aad aragtaan wixii oo dhan meesha ku fidayo so isku day inaad resizing ku samaysid browser window-ga daaqada ku furan browserka kadib waa arkaysaa sawirka soo u jiitamayo laakiin markastaba entire page element inuu daboolo marka ayaa la rabaa but always cover the entire element okay marka waa kana asina tusaalaha ugu dambeeyo okay hadda noo la sheegaya kii hore kan wuxuu kala duwan yahay kan waa 100% marka meesha 100% laga dhigo wuxuu noqonaa sida midkan jiidan sawirkii la kala jiiday laakiin markii oo meeshaasna uu yahay cover background size ka cover markuu yahay fixed yani sidiisu caadi waa ku imaanaa oo halka original sidiisu ku keep gareena so marka fixed ki no repeat waxna waa isaga sameeyeen meeshaan ku kala duwan cover markuu yahay originalkiisu ku reeba 100% markuu yahay wuxuu ka dhigaa kii hadda aan arkaynay okay waan kana sawirka jiidan okay ku celis kale wax ma kordhinayso waa inta hadda aan sheego kaliya so qoraalka marka waxa lagu yiri meeshaas baro wax badan oo CS ku saabsan tusaalooyinka kore aad baratay ku saabsan background image-ka waxa lagu qaabeyn karaa iyadoo la adeegsanayo CSS background properties يعني property-yada ama hantida background CS uu leeyahay so si aad u barato in badan ku saabsan CSS background properties baro CSS background tutorial-keenu ku leeyahay so meeshaas aan ku dhufanaysaa waa inay casharka xigo isla mowduucan HTML ku saabsan gaar ahaan waxyaabaha la xiriiro habka sawirada loo geliyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.